السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso ku soo dhawaad qaybtii 11aad ee sheekadii Saxardiid. qaybta 10aad ee sheekadii Saxardiid waxay noo joogtay labadii sibraar ee yaryar dhabarka ayuu ku xirtay. qaybta 11aad waxay ku bilaabmaysaa sidatan ayuu doontii oo dacalna biyaha kula jirta dacalna ciida dhex taala dhex fariistay wuxuuna suga xilligii gaarka ahaa ilbiriqsi intaynu dhammaan waa mowjadii oo socota kadib markii xayligii oo dhan wada qarisay ayay sii noqodkii Saxardiid iyo doontii si yare la xawaareysay. mowjadii baa Saxardiid iyo doontii yareed marna korgeysa marna hoosta gashata waxaas oo bug iyo bac ah. Saxardiid doontii yareed ayuu labada dhinac si fiican ugu dhagay markaasoo biyaha indhaha ka dharbaaxan oo ay dhegaha ku dhuftaan mararka qaar waxaaba moodaa inuu indhihii iyo dhegihii beelay. dhirbaaxadii mowjada ayaa kadib madaxii yaraa wareeray oo miir tirtay markaasay intay muruqyadii yaryaraa dabceen oo uu meyd kale oo noqday ayuu doontii fariisay ka baxeen. haddaanu qarbadu laabta ugu xirnayn oo aanu la sabay lahayn Saxardiid dambe lama arkeen oo badweynta maqaadir la soo doonatay ayaa qaaxada u ridan lahayd. hase ahaatee naf ilaahay nooleynaya ma baxdo isaga oo miirla oo biyaha waalani kolba dhankee doonaan u tuurayaan ayuunbaa mar keliya mowjadii in ilaahay uun qiyaasi karo cirka martay. dabadeedna Saxardiid iyo qarbadiisii ku tuurtay xeeb bannaan oo meyd ahaan ugu tagtay. waxuu xeebtii yeelaba oo uu miir iyo maanba la'aadaba cadceeddii subaxnimo ayaa soo baxday iftiin diiran ayay markiiba ifka wada gaarsiisay. Saxardiid baa intay cadceeddii jirkiisa yar diirisay kadib qunyar nafta ugu soo noqotay oo indhaha kala qaaday. markuu guuxii madaxiisii ka baxayay oo si fiican ugu miirsaday ayuu wuxuu is arkay in uu jiifo meel doog yar oo qoyan qarbadii iyo labadii sibraarna dhexda kaga xiran yihiin. kolkaasoo sare kacay oo dhinacyadiisii eegay cabaar ayaa afkalaqaad iyo yaab neefba ka soo bixi weysay. wuxuu arkay xeeb waxa dahab yaala aan bini'aadam aragna oona maqal kuna riyoon bal amuurtan iyo yaabkan eeg ilaahay cilmigiisu fara badana. dahabkii badnaa markuu arkay ayuu xasuustay sheekadii habarta ugu sheekaysay dabadeedna gartay in meeshaan maqaadirtu ku soo tuurtay ay tahay xeebtii dahabka. markaasuu intuu qarbadii meesha kaga tagay daawasho golba dhan u socday intaanuu haddaba dhowr tilaabo qaadin ayuu wuxuu maqlacod u yeerayaa. xaggiisii markuu daymooday wuxuu arkay nin geed hufan oo miro leh il biyo ahna ku dul yaala hoos fadhiya. markaasuu ku soo dhaqaaqay ninkii haddaba ninkii wejigiisii si fiican u fiiriyey yaab iyo fajac baa alla u keenay. intuu farxad ishayn kari waayey ayuu qayliyey alla waa Samaale adeer. markaasuu ku cararay oo isyiri gacan qaad. hase yeeshee Samaale ayaa halkuu fadhiyey yar ruqaansaday oo kici waayey. Saxardiid baa intoo yaaba yiri maxaa kuugu dhacay adeer? Samaale ayaa indhaha intuu ka biriqsiiyey yiri isagoo cod murugaysan ku hadlaaya adeer soo dhaweyn la'aan ha iga moodin waanan kici karayn soo intay mowjadii dhagax weyn oo dhagaxda xeeliga ka mid ah igu dhufatay qarqaarka hoose oo dhan budusha igamay dhigin. isha biyaha ah iyo midhaha geedka la'aantood la imaba arkeen oo haraad iyo gaajo ayaanbaa u dhiman lahaa. Saxardiid baa beerka u qaboojiyey oo ku yiri waa nasiib darro adeer imikana allah kuu dhib yareeyo. markaasuu deeto intuu ag fariistay halkii ugu sheekeeyay xaalkiisii intay soo kala maqnaayeen kana wareystay wuxuu ku sugnaa intaa oo cidladan yaalay. Samaale ayaa dabadeed yidhi adeer miyaan sanadkan dhan ee aan soo kala maqnayn wax un xoolaad ah oo aan afkayga gelin? Saxardiid baa markaa intuu kacay is yidhi intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 11aad ee sheekadii Saxardiid.